gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee u cidi jineer Faysal Cali Xuseen Faysal Cali Waraabe ayaa ka soo qayb galay xaflad ballaaran oo loo sameeyay musharaxiinta golayaasha baarlamaanka Soomaaliland ee gobolka Maroodijeex iyo golaha deegaanka Gabiley ee beesha Ansaareed. xafladan oo si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa waxa ka soo qayb galay salaadiin, cuqaal, aqoonyahan, siyaasiyiin iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. saraakiisha ugu sareysa ee xisbiga mucaaridka ah ee u cidi oo hogaaminayo gudoomiyaha xisbiga Injineer Faysal Cali Xuseen waxaana ugu horeynba ka hadlay maanta waxa halkan aynu ku soo bandhiganaa oo noogu diyaara beeshii qura ee ka dhignayd reer Gabiley in xisbiga uu cid ku soo biirto waa beesha Ansaareed oo maanta ku diyaara in xisbiga uu cid la shaqayso. beesha Ansaareed abaal weyn bay ku leedahay guud ahaan dalka Soomaaliland gaar ahaan reer Gabiley marka loo eego waqtigii halgankii waa beel ku sifowday daacadnimo karti iyo xisbiga ay raacaan oo noqdo xisbiga guuleysanaya. waxaan leeyahay gudoomiye calankaagu waa cagaar gobolka Gabiley waa gobol cagaaran waan kugu soo dhaweynaynaa mar koobaad iyo mar labaad beesha madigaana oo markii koobaad intay nooleed ay macaarid noqoto ku soo dhawow beesha Ansaareed wiilkan baan ku leenahay anagu waladan Ansaartana xisbiga raacna ma guul daraystaba laki baan anagu aad baan kugu soo dhaweynaa sanadka waa sanadkaagi waa sanadkii Faysal waa sanadkii galbeedka gudoomiye waxa kale ku sheegaya inamadan aan naga qaabishay waa inama aan soo shirabnay oo aanu ka soo baaraandignay oo gudi u saarnay oo in badan ka soo shaqeynay musharaxiinta aynu madashooda xafladda shaacinta u fadhino oo kala ah niman dhalinyaro oo la soo xulay oo ay soo xushay beesha Ansaareed ee madigaan ee ku suntan gobolka Gabiley taariikhda faca weyna kule xaqiiqatan waa mudane aadan iyo Caydaruus oo leeyahay saaxadda siyaasadda soo gasheen iyo madasha meesha ururka la idin soo xulay waxaan walaalo ku nahay qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan walaalo ku nahay jiritaanka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan walaalo ku nahay adkaynta qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland. cadaaladana ayaa waa beeshu waxaan garanaysaa inay soo bixisayaan inamada labada inan ee xildhibaanada soo dooranay cirkii baa haagaa ku daruurayo daaya waxba jira maanta waa arrin cajiiba xildhibaanadiisa shaaciriye daruuriye ma jiray maanta se cirkaa badaayo Ansaarta waxa lagu yaqaanaa calaamooyinkaas ay leedahay. waxaan gudoomiye ku soo dhaweynaynaa qalbi furan iyo niyad faraxsan in laga gudoomi adiga iyo xisbigaaga iyo dhammaan marti sharaftaad hogaaminayso. haddii aan labada inan la hadlo oon dardaaran kula hadlo waxaan leeyahay dadka iyo diinta iyo dalka laydiin doortee madigaa laydiinma dooran iyo Ansaartoona sidaa waa inaad aamintaan. marka labaad waxaan idinku dardaarayaa waxay Soomaalidu tidhaahdaa boqor aan dulqaad lahayni waa damal aan had lahayn bay tidhaahdaa. oo markuu Hargeysa ka soo baxay oo xagga Gabiley u soo dhaqaaqay ayuu roobku nagu bilaabmo bariyahay naaray marka de kullay meesha waxba ka socdo xafladii waxay noqotay xafladii jidka intaanu ku soo jirnay roob aan bariyaha diin baan nagu daayay way barakeysay waa ducaysayeen beerihii waa ka gaabisay reer Gabiley beerihii ha loo soo noqdo ugu dambeyntii waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee u cidi jineer Faysal Cali Xuseen Faysal Cali Waraabe iyo musharaxiinta golayaasha qaranka ee halkaasi lagu soo bandhigay. Faysal Cali Xuseen iyo wafdigu hogaaminayo waxa kale oo maadnaqaya ugaaska guud ee beesha ugaas Faarax Sheekh Cabdilaahi waxa kale oo maadnaqaya mar labaad wax leeyahay guud ee beesha odayaasha cuqaasha dhalinyarada haweenka aqoonyahanka waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. reer Gabiley u midaysan yihiin la isku raacsan yahay diyaarna u ah inuu gobolnimadii Gabiley geed dheer iyo geed gaabanba u koro inay Gabiley hesho gobolnimo buuxda. waxaan ballan qaadayaa inaan ku dadaalo samayn shuruuc xeerar waafaqsan shareecada islaamka oo ii ah qodobka koowaad
walaalayaal horta marka horeysa horena waan u aqbalnay imankana waanu idinka aqbalnay aadan garyare daa'uud gadweyne iyo cabdirisaaq waa iska aqbalnay ilaahay waxaan ka baryayaa inay noqdaan kuwii soo baxa ee dalkooda iyo diintooda wahiiliya waa cabdisalaan maxamed bade bulsha TV gabiley.